tacadiyada iyo dhibaatooyinka aadka u xun ee loo geysta haweenka Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay isa soo tareeyay iyadoo ay ugu badan tahay gabdho yaryar oo aan qaan gaadhin oo inta badan kufsi loo geysto kadibna qudha laga jaro. toddobaad ka hor ayay ahayd markii dhacdo aad u naxdin badan ay qabsatay warbaahinta bulshada Soomaalidu ay isticmaasho kadib markii gabar aad u yar inta kufsi lagula kacay dabadeedna la dilay oo ay dhacday in digsi ama sida dheri loo yaqaan lagu riday. taas oo sababtay in muddo 2 maalmood la weysanaa oo ehelkoodu ay meydkooda xitaa la aayeen kadibna la helay iyadoo digsigaasi ku dhex jirta. dhacdadaas ayaa si weyn buuq uga abuurtay warbaahinta bulshada isla markaana naxdin ku abuurtay bulshada Soomaaliyeed. waxaa kaloo jira sida la ogyahay kufsiga oo soo badanaya iyo tacadiyada ay ka mid yihiin dilka haweenka loo geysanayo. haddaba arintaas sidee wax looga qaban karaa, sidayse u muuqataa jawaabaha laga bixiyo marka dhacdooyinkaas oo kale ay dhacaan. barnaamijka waxaa marti noogu ah amuraha aan ka wareysan doonaa Nasra Maxamed Xasan oo aasaasaha hay'adda magaceeda loo soo gaabiyo Baygo oo u shaqeysa arrimaha haweenka isla markaana ka shaqeysa si gaar ah ilaalinta tacadiyada loo geysto gabdhaha yaryar ee aan qaan gaadhin. Nasra ku soo dhawow barnaamijka dabagalka Universal TV. ugu horeyn sideed u aragtaan dhibaatooyinkan soo badanaya ee ku dhacaya haweenka Soomaaliyeed gaar ahaanna gabdhaha yaryar maadaama arinta ka shaqeysaan idinku? walaal waa mahadsan tahay waa ku dhawahay barnaamijka. magacayga waa Nasra Sambuur. sida uu hore u sheegtay waxaan aasaasay hay'ad la dhaho Baygo oo ka shaqeyso ama u taagan sidii loo yareyn lahaa tacadiyada baryahan soo badanaya ee gabdhaha yaryar loola kaco. haddii aan guda galo su'aashaadii weydiisay sida aan u arko dhibaatooyinka soo badanayo aad ayay noo saameynaysaa, especially anigu dumar ayaan ahay Soomaaliyana waan joogaa. baryahan waxaa aragnay inaa gabdhihii yaryaraa hablihii dumar oo dhan nooc kastay ahaataba falal aad u xun loola kacayo. aad u malaynaysa in la dagaalan xoog leh dhanka nafta lagula kacayo. maalin walba waxaa la arkaa oo social media kusoo badanaysa gabar si xun loo dilay, la kufsaday, la jir dilay, dabaq laga soo tuuray. maalin dhow 3 beri ka hor waxaan ogeyn nin warta nabadda xaaskiisa ku dilay. marka ma ahan wax oo aad nooga farxinaya, waa arrin aad noo damqinayso oo ma aragtay si xun aan u aragno. waxaana dareemaynaa cadaaladda inay wali la marsiinin haddii ragga dhibka samaynayo. gabar walba tacaddi loo geysto haddaad fiiristo tacaddigu nin rag ayaa u geysanayo. marka haddii la marin lahaa magaceeda muxuu ahaa cadaalad la horkeeni lahaa oo ninkii koowaad ee arrintaas falay looga argudi lahaa ama waxay diinta iyo shareecada ka qabta la marsiin lahaa, waxaan aaminsanahay tacaddigii labaad inuu yaraan lahaa amaba u dhici lahayn. laakiin hadda waxaad u malaynaysaa inay noqonayso arrin iska samee ah oo ay ogyihiin hadday si kasta u sameeyaan waxba kasoo gaari karin. marka aniga aad ayay ii dhibaysaa. watay Nasra, qaabka looga jawaabo marka waxyeelooyinkaasi ay dhacaan ama falalkaas kufsiga iyo dilka isugu jira ay haweenka ku dhacaan meelo kala duwan oo caasimadu dabcan ugu badan tahay ay ka dhacaan, jawaabta laga bixiyo ma kula muuqataa mid lagu qanci karo inay tahay? maya walaal anigu ahaan Nasra Sambuur ilama ahan inay tahay jawaabaha la bixinayo jawaab lagu qanci karo. badanaa markay dhacdo sida u foolxun ku dhacdo sidii gabadhii digsiga lagu riday, gabar hadda ka hor aad loola kacay iyadana oo xataa banaanbaxyo laga sameeyay oo dabaq laga soo tuuray, halkaas ayay ku dhamaataa. badanaa waxaa arkaysaa bulshada ayaa la kacayso, social media ayaa lagu wareejinayaa, laamaha amniga waxay leeyihiin qofkii ayaa raadinaynaa, cadaalad ayaan soo marsiin doonaa. and then 3 beri iyo 4 beri kadib waxaa ogaanaynaa arrintii way dhamaatay, wax cadaalad la soo istaajiyana maana arkin, wax kasii buuqo kasii hadlayna ma lahan. markay cusbeed un baa laisla wadwada. marka ismalihii wax lagu qanci karo oo ay bulshada ku qanci kartaa ayaa la sameynaya marba haddaan cadaaladii aan la qabanin oon dadkii laga argudin ama shareecada la horkeenin islaamka. haddii lagu guuleysto qofkii dambiilaha ahaa ee falkaa geystay oo gacanta lagu dhigo, maxaa sabab u ah in ciqaabtii uu mudnaan la marin waayo oo arrintaa uu ka baaqsado? horta walaal waa mahadsan tahay. waa run arrintaas way dhacdaa, marar badan ayaan maqalnay oo niyadda naga jabtay. waxaa dhacday inay marmar ma badno in la soo qabto hal iyo qof oo gabdhaha ama dhibaato geystay. waxaa arkaysaa in lagu heshiiyo waxaan la yiraahdo xaal qaado oo sameyn iyo waxaas. bulshada waxay sameynaysaa labadii qabiil ayaa kulmayso geed hoostii ayay go'aan ku gaarayaan. waxaa la damcayaa in maaragtay qofkii la soo qabtay waxaad arkaysaa aabbo ama hooyo Soomaaliyeed oo nin gabar soo kufsaday ama dhibaato soo gaarsiiyay waqti gelinayo ee u doodaya raba inuu badbaadiyo
sidii ninka ama ragga aanan canqaab loo marsiinin marka waxay sameynayaan geed hoostii baa lagu heshiinayaa xaal qaadaa la leeyahay mag baan bixinaynaa baa la leeyahay dhankii gabadha laga tacadiyeeyana way yeelayaan hadee waxaa loo oday ahaan baa loo isticmaalay dhankii raggana rag baa lacag iyo waqti iyo maal ku bixinaya si arrin hoos loo dhameeyo marka su'aasha waxa sababaya inay sidaa ku dhacdo waxaa waayo in la xaliyo oo arrintii la yiraahdo annaga si hoosaad ku qancinayno ama haday gabadhi nooshahayna ay foolxumo iyo fadeexad iyo ceeb iyo xanuun ay la noolaato ninka ragga ahana uu maqaayadihiisa iyo magaaladiisa si fiican ugu shaaho oo cid wax ka qabatana aan jirin marka taas ayaa keenaysa in qofkii haddii lasoo qabto xataa wuxuu ogyahay berri odayaal inay u doodayaan arrintina u dabinayaan aana waxba la gaarsiinayn iminka dhacdadii ugu dambeysay ahayd gabar tayar aan qaangaarka ahayn inta la kufsaday la dilay dabeetana digsiga lagu riday waxay dhacdo nooceedu cusub yahay aadna looga argagaxay kalsooni intee leeg baa lagu qabi karaa haddii dadkii falkaa geystay dambiilayaasha lagu guuleystay in la qabto in caqaabtooda ay maraan walaal waa mahadsan tahay ismalihii aniga hadda horaan usoo aragnay sanado badan ayay soo guuxaysay arrintaani soo socotay ismalihii kalsoonida lagu qaba inay nimanka ayaga falkaa geystay kalsoonida aragti qaba ee gabadhii intay dileen ay googooyeen digsi kusoo rideen indha aday ku darsadeen gurigeedii soo geliyeen oo haddana ma aragtay qariyeen ay halkaa ku quruntay ismalihii 100% kalsooni ayaa jirto oo ah inay nimankaas ama dadkii falkaa falay cadaaladda la horkeeni doono aniga horta taas kuma jiifo laakiin waxaan u malayn doonaa dee in kalsooni 100% ma qabo laakiin in 52 adiga wax 50 ka yar lasoo horkeeni doona ama la soo qaban in la soo qabto waa laga yaabaa laakiin waxaan filayaa haddii la soo qabtana in la heli doono dad u doodaya ragga ayagoo dhibkaa falay oo dhihi doono hal iska daayo gabadhi waa dhimatay ma ka la qaato saan ha lagu xaliyo saan ha la yeelo arrintaas ismali 100% shareecada iyo waliba dastuurka Soomaaliya wuxuu ka qabaa ayaa la marsiin doonaa oo cabsi ma qabo waxaa laga yaabaa qofkii dhibkaa falka argagax sameeyay maanta inuu meel fadhiyo uu faraxsan yahay uu naftiisa og yahay inay odayaal u doodi doonaan waxna aanan soo gaari doonin ayna dhacdan inay sidaas fasho waxaana ogahay oo hubaa oo halkan ka sheegaya qofka asaga haduu badbaado bari inuu ku celin doono oo falka fal lamid ah uu sameyn doono nasra adigu waxaad aasaastay ururka leeyahay Baygo oo ilaalinta haweenka yaryar ama u doodista iyo sidii xuquuqdooda loo ilaalin lahaa maxay tahay shaqooyinka ugu muhiimsan aad qabataan walaal waa mahadsan tahay anigu waxaan aasaasay hay'adda la dhaho Baygo waxay u taagan tahay Protect Young Girls Organization badbaadinta gabdhaha yaryar hay'adani waxaan aasaasay sanadii 2017 waxa igu kaliftay anigoo dhalinyaro ah oo jaamacad dhiganaya oo dalka Kenya ayaan jaamacad ka dhigan jiray joogo ku soo koray ilaa dugsigayga hoose dhexe iyo jaamacad intaba halkaas ayaan ku soo qaatay markaan Soomaaliya 2017 imaaday ayaan arkay falalkan iyo soo badanayo tacadiyada dumarka soo badanayo waxbarasho la'aanta guurka degdega gudniinka fircooniga ah waxyaabo far badan oo dumarku ay la cabanayaan oo gobolada qaasatan ka jirto haddana aanan ma aragtay laga warheenin oo la ogeyn kadib waxaan arkay inay gaab weyn uu meesha ka banaan yahay oo arinta dumarka ay u baahan yihiin heel iyo hoo midnaba ay u baahan yihiin intaba sida awgeed ayaan hay'adaasi aasaasay hadda waxay ka shaqeysaa gobolka Gado gaar ahaan Garbaharre ayaan xafiiskeeda ugu weyn ku leenahay Balxaawo sidoo kale barnaamijyo ayaan ka qabanay sida dabagalka gabdhaha noloshooda khaaska waxbarashadooda kufsiga ayaan u dabagalnay doolo waxbaan ka qabanay haddana gobolada dhinacyada kale waan ku firaarnay xamarna hadda ayaan xafiiska furanay marka walaal waxa ugu badan oo qabano waa arinta haweenka dabagalka oo noloshooda waxbarashada caafimaadka hadda Garbaharre waxa ka furan xarun caafimaad ee MCH ah oo si isxilqaan ah looga shaqeeyo dad dhalinyaro ah ay magaceeda taabageliyeen in ay aqoontoodii ugu shaqeeyaan magaceeda bulshadii Soomaaliyeed sida awgeedna lagu bixiyo service free ah oo hooyadii ay meeshaas xaaladeeda caafimaad kala socon karto ku dhali karto maartay halka loogu adeegi karo marka aniga xiliyadaas ayaan aasaasay sida aan u aasaasayna waa in dumarka loogu adeego on bal at least wacyigelimo aad u badan sida hore u fidinaba haddana aan sii wadno dumarkana loogu adeego waatay muddadii aad hawshan ku jirtay arrimaha hablaha ilaalinta xuquuqdooda iyo dabagalka dhibaatooyinka loo geysto aad ka shaqeynaysay maxaa dhacdooyin kugu la yaab badnaa ama aad ka naxday oo aad la kulantay
abo waa mahadsan tahay waxyaabo aad u fara badan ayaa arkaysaa markaad fieldiga soo geshid oo khaasatan aad damacdid inaad bulshadii gudaha usii geshid. dad ayaa saddexda waqti cuno, dad ayaa nabad iyo nolol caafimaad ku nool oonan waxyaabaha dadka kale ay marayaan aanan ka warhaynin. markaan fieldiga soo galay waxyaabo aad iga naxiyo ayaan arkay. waxaa ka mid ah gabar 10 jir ah oo nin 46 jir ah markaan riboodka ka qaadaynay kufsaday, isku furantay oo aad u daayar meel tuulo ah ayadoo ari raacayso la kufsaday. gabadhii markaad aragtid oo maaragtay life baan anigu arkay xafiiskayga ayaan keenay ayadii hooyadeed argagax aad u weyn ayaa ka muuqdo, way sasan tahay, qofkii aragtaa way ka cararaysaa, ma kula hadlayso. gabadhii maaragtay xaalad caafimaad ay aad u weyn ma helin oo hadee gabadhu aad bay u yartahay 10 jir waayo hadalka xataa aad uma saxayso. marka tii igu yaabka badneed midaas ayay ahayd oo haddana markaan hooyada wareystay igu tiri muddo 9 bari markay gabadha dhiig bixisay oo meel baadiye ah joogtay ayaa qoyskii ninkii gabadha kufsaday intuu u yimaadeen qoyskii baa imaadeen ayay waxay u keeneen laba wan ay u keeneen sida loo yaqaano lax sabeen xir wax la dhaho. marka labadaas ayaa la dhahay waa kugu sabeen xirena gabadha xaraarsimaha loo sameeyo. you can't imagine gabar yar la kufsaday dhibaato soo gaartay inkee la tulin nolosheedii xaaladeedii lala tacaalin in loo sabeen xiro la yiraahdo xaraarsimaha loo sameeyo. marka arintaas ayaa aad ii xanuunjisay oo aan arkay arrimo kale badan way jiraan inta lagu soo koobi karin. marka aad qiimeysay xaaladda sidee wax looga qaban karaa dhibaatooyinka noocan heerka gaarsiisan ee haweenka loo geysto ayay kula tahay adiga? walaal waa mahadsan tahay. horta kolley alxamdulilah shukrul caalamiin annaka waxaan ka dhalanay diinta ugu nasteexada badan ee bini'aadan uu ka dhasho oo islaam ah. waxaan aaminsanahay sida ugu wanaagsan ee qofka bini'aadanka lagu qabto sida lagu kala haro markii qof kale u dhaarto ama kitaab la ismarsiyo ay tahay meesha ugu sarreysay qof lala gaaro. waxaan aaminsanahay sida ugu weyn horta number 1 oo wax lagu qaban karo waa diinteena islaamka, culimada diinka, odayaasha inay dadkii maaragtay arrintaani ka hadlaan, ka dhidhiyaan, muujiyaan, magaceeda wacyigeliyaan, bulshadii raggii la raadiyo, gacan ay ka geystaan magaceeda sheekhayaasha iyo imaamska annaka aan qabno noo magaceeda noo joogaan. marka waxaan aaminsanahay midda ugu weyn taa inay tahay. midda labaad oo isleeyahay ayay u baahan tahay waa wacyigelin guud in la sameeyo, ragga in la baro dadka ay dilayaan oo dhibaateynayaan inay tahay hooyadooda, walaashood, xaaskooda, dumar oo dhan waa qofkii ayaga adduunka keentay. marka waxaan aaminsanahay wacyigelin la-aan, diin la-aan, iimaan la-aan ayaa keenaysa inay dhibaato noocaas oo kale ay dhacdo ay soo noqnoqoto. marka waxaan isleeyahay sida kaliya wax looga qaban karo waa in loo nasteexeeyo oo wacyigelin aad u fara badan la fidiyo, culimada diinkana ay gacan weyn ka geystaan. ugu dambeyn maxaa soo jeedin lahayd nasr mawduuca si lagu guuleysto oo arrimaha wax looga qabto? waxaan soo jeedin lahaa tala ahaan sidaan hore u sheegay inay arintan loo wada istaago, arintan inaana laga harin. la xisaabtan la-aan ayaa nahayso wadamada qaar dunyada ka jirto. dadka waxay ka baqaan beri ka maalin waxa ku dhici doona. la xisaabtan qof ayaa og hadduu dhacdo sameeyo in laga daba imaanayo, in la helayo, in la qabanayo, haddii la qabtana u baxsanayn. marka sidaa awgeed waxaa ka jirto inuu qofka dadka kale ayaa dabagalka ugu filan intaana laamaha amniga la gaarin. bulshada ayadaa sheegto qofkii meeshaas maraya, qofkii incidentiga sameeyay, qofkii waxaa sameeyay. Soomaaliya taas kama jirto. qofkii maanta qof kufsaday oo cararaya, qofkii ka hor imaada ma sheegayo, wuu qarinaya. haddii asaga uu qariyo laamaha amniga intii sidii kusoo heli lahaayeen ayaa adkaanayso. qofkii wuu sii fakanaya, wuu fogaanaya iyo dalku ka baxaya. qofka tigidka u jaraya, qofka dalka ka saaraya waxaa laga yaabaa inuu la ogyahay arrinta dhacday uu la fakanayo. sidaa awgeed waxaan soo jeedinayaa number 1 inay bulshadu ka qayb qaadato, inay magaceeda walaalahood iyo gabdhaha iyo dumarka badbaadintooda inay laga wada shaqeeyo si general oo ummadda dhan ay u wada istaagto. number 2 inay culimada diinka gacan ka geysato. number 3 inay dawladda ay u sameyso si gaar ah dabagalka dhacdooyinka aadka u foolxun maalin walba joogtada ay dhacayo oo dumar lagu fadeexaysanay, lagu dilayo, naftana looga goynayo. aad baad mahadsan tahay. taasina waxay ahayd Nasra Maxamed Xasan oo ah aasaasaha hay'adda Baygo magaceeda loo soo gaabiyo oo hay'ad ka shaqeysa ilaalinta xuquuqda hablaha yaryar iyo tacdiyada lagu geysto dabagalkooda. aad baad mahadsan tahay Nasra. qodobkaas ayaa ugu dambeeyay daawadayaal barnaamijkeeni dabagalka wararka Universal TV si toos ah uga daawanayseen. anigu Nuuruddin Cali joogo waa idinka soo tabinaya xarunta telefishinka Muqdisho. dib intaynu kulmi doono barnaamijkan xiga waxaan idin siilaynaa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.